Soomaaliya waxa loogu talagalay qaraarkii markii lagu fashiray United Nations ka dambow waxa la soo qariray ogaada ninkii rabaana ha baarto ninkii aan rabin iska daay laakiin waan idin leeyahay waxa qaraar oo asaasi ah Soomaaliya in laga dhigo awal two stages in loogu dhaqo stage number 1 ummada Soomaaliyeed in laga ilaaliyo marka ugu horeysa wax alla wixii diin kule inay kor u soo kacaan madharka islaamiga aan la baabiyo waa asaaska hadafka ugu horeeya stage-ka koowaad waa ka weey stage-ka labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka horeeto manaatiq in loo qaybsan region in loo qaybiyo marka ugu horeysa oo aanan automatically marka horeeto laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo stages in laga dhigo region in laga dhigo region walbana loo sameeyo nin governor in loo sameeyo oo ra'iisul qabiilada oo la diiniyo in loo sameeyo goboladaas marka nimanka jooga Soomaalida ee iminka dadku ay yaqaaniin warlords waxa lagu qancisi oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyo inaanu waxba ka qabanin dawladda Ethiopia inaanu waxba ka qabanin koos noolaadkeeda inuu ku hoos noolaado inaan waxba ka qabinin si loo proofata waa in shirar loogu yeera waa yardi sabab yimaadaan 24 saac amxarna maamula waliba darajo hoose oo ka naasay inuu maamulo ma aha madaxweyne mana ahan wasiir waxa maamulaya kuwa ka sii hooseeya maamulaya stage-kaas waa stage-ka maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya stage-ka labaad waxa weeye in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahaato qayb kamida Ethiopia weeye central kuwa Ethiopia weeye ayaguna waa region weeye governors marka dambe looga taliyo ardayda inay noqdaan